gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Brand Bootaan Axmed Bootaan ayaa xariga ka jaray dhismeed dayactir dib u habeyn loogu sameeyay ceelka Riiga Brand kaasi oo isugu jiray motor loogu deeqay ceelka iyo tuubooyin soolaro iyo waliba qalab kale oo muhiim ah xilligan loo baahnaa gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya ceelka ayaa sheegay inay tahay muhiim in la ilaasho hantida dadweynaha isla markaasna uga mahad celiyay hay'adda ACT oo ka qayb qaadatay mashaariic dhowr ah oo ay ka mid ahayd tan ceelka iyo waliba arrimo kale kuwaas oo ay bulshada deegaanku aad ugu baahnaayeen gudoomiyaha oo xariga ka jaray mashruucan iyo mashaariic kale oo maanta magaalada Brand ka qabsoomay ayaa yiri dayactir wanaagsan oo hay'adda ACT ay ku sameysay ceelka Brand iyadoo ka dhistay taangiga weyn ee biyaha dul yaala halkan ay dadkaasi public uga cabaan qolkaas maxaa la yiraahdaa motorka la dhigo iyo soonarka oo meel ka jabnay ka dayactirtay sidoo kale waxay biyo gelin ku sameysay gudaha magaalada qolka shirarka degmada iyadana waxa la geeyay macdad qasabada dheeraad ah sidoo kale waxa lagu sameeyay dayactir area-da ama meesha uu yaal solar system-ku oo yana sir lagu wareejiyay sida daraadeed insha Allah aad baan ugu mahad celinahay hay'adda ACT oo fulinta leh iyo USAID oo maartay fanka bixinaysay insha Allah ta'ala marka waxay noo tahay fursad wanaagsan waxaan leenahay insha Allah bulshada reer Brand inay agabkaas iyo qalabkaas iyo ma xaliya fursadda ay haystaan ay dhowraan oo dayactirtaan oo ilaaliyaan waa hanti guud ma mid qof leeyahay ma mid ACT leedahay innaga maanta iska leh wixii ka dambeeyay maanta inaga mas'uuliyaddeeda leh xanaaneynteeda dhaqaaleynteeda wanaajinteeda iyo dhaqankeedaba intaba inaga iska iyo ka faa'iideysigeeda saa daraadeed waxaan kula dardaarmaynaa insha Allah ta'ala bulshooyinka reer Brand inaysan iska dayicin sida meelo hore oo kamid ah deegaanka bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horreyn Ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala inuu nabad iyo caafimaad qabno goobtan oo kulmiyay waxa farxad weyn iyo qiimo weyn inaan ka soo qayb galo xaflad lagu xariga laga jaray dayactirka ceelka magaalada Brand aad baan uga mahad celinayaa bulshada Brand soo dhaweynta qiimaynta iyo qadarinta ay soo dhaweeyeen ceelka kan oo dayactir fiican loo sameeyo markaas baahiyihii aan is oran lahayn asaasi u yihiin oo ugu muhiimsanaayeen laga dayactiray sidoo kale waxaan yana xusuus mudan iyo xusidba wakaalada horumarinta biyaha Puntland oo aan ka socdo oo shaqada tan uu soo wakiishay isduwaha gobolka Highland aad bay ugu mahadsan yihiin mahadda ku aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waale maayarkan aad baan u salaamayaa dhammaan xildhibaanada iyo bulshada waxaan kaliya kula dardaarmayaa bulshada reer Brand inay noqdaan bulsho sidii horeba lagu yaqaanay markasta ilaashada wixii loo keeno Ilaahay subhanahu wa ta'ala umadiisa ugu soo dhiibo si aan ugu dhiirano inaan waxaan wax ka badan u qabano mana aha markii ugu dambeysay wax u qabano insha Allah waxa wax ka badan oo muhiim aad baan idin salaamayaa Awraartiro Production fadlan taabo subscribe oo ka mid noqo saaxiibada halka Awraartiro Production